midowga musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay mudaharaad lagu wado inuu dhaco maalinta Jimcaha ee nagu soo wajahan kaas oo ka dhici doona magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kaas oo loogu soo horjeedo dawladda waqtiga uu ka dhamaaday uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Musharax Daahir Maxamuud Geele oo ku hadlay magaca musharaxiinta ayaa sheegay in banaanbaxa Jimcaha uu yahay mid nabdoon oo loogu ilaalin doono rabshado, laakiin warar aan helnay ayuu yiri ayaa sheegaya in dawladda Soomaaliya ay isku diyaarinayso in arqaladeen ay ka geysato dibadbaxaasi. Waxaa sidoo kale Daahir Maxamuud Geele oo ugu baaqay hay'adaha ammaanka in aysan qalalaasi aysan ka abuurin banaanbaxa isla markaana ay ka qayb qaataan sugidda amniga muwaadiniinta isu soo bixi doona maalinta Jimcaha ayuu yiri. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Xijaar ayuu ugu baaqay in uu qaato kaalintiisa dhexdhexaadnimo isla markaana ay xaqiijiyaan amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu sidoo kale ka dalbaday in ay taxadir ay ka muujiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aysan ku milmin siyaasadda iska soo horjeeda isla markaana ay u adeegaan muwaadiniinta isku soo bixi doona sidii amnigoodu ay u xaqiijin lahaayeen. Arrintan iyadoo jirta ayaa midowga musharaxiinta waxay saacad ay u soo saarayeen baaq u aadan in dibadbaxaasi uu dhici doono maalinta Jimcaha ee nagu soo wajahan. Daahir Maxamuud Geele oo amuurahaasi ka hadlayana wuxuu yiri العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. dadweynaha Soomaaliyeed balkasta ay joogaan waa salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. galabta waxaan halkaan ugu talagalnay inaan ku bixino ku qabano shirkan jaraa'id oo uga hadlayno arrimaha mudaharaadka maalinta Jimcada ee soo socoto. shirkan jaraa'id waxaan ku metelaa golaha midowga murashaxiinta Soomaaliya oo afhayeenkooda ahay. waxaan rabnaa inaan qabano maalinka Jimcada ah sidii shalay aad la socoteen Soomaaliya meel kasta joogtaan warbaahinta aad kala socoteen inaan qabano shir isu soo bax inaan qabano mudaharaad inaan qabano aan uga hadlayno xaaladaha dalka uu ku sugan yahay. shirkaasi ama mudaharaadkaasi waa mudaharaad silmi ah oo nabad ah oo dagaal iyo dirir aan loola jeedin. waa mudaharaad dastuurka waafaqsan oo muwaadiniinta xaq u siinayo inay hababka ay wax ku cabiri karaan ay ku cabiraan. waa mudaharaad aan ugu bahayn oo had iyo jeer la qaban jiray oo dawladda ay qabsan jirtay. mudaharaad dadka Soomaaliya aan rabno waa inaan ugu ifino wadada ay tahay xaaladda murugaysan ee xagga siyaasadda ka taagan dalka Soomaaliya habka looga bixi karo meesha uga bixi lahaayeen wadada murugada meesha uga bixi lahaayeen inaan ugu tilmaano ayaan rabnaa. mudaharaadkaas mudaharaad la qarinayo ma ahan mudaharaad banaanka yaala waaye mudaharaad dadka Soomaaliya aan ku boorinayno waa inay ka soo qayb galaan mudaharaad aan ugu talagalnay waa rabitaanka bulshada Soomaaliya ay rabto in isbedel siyaasadeed yimaado inay ku muujiyaan. waa mudaharaad dastuurku kafaalo qaadayo xuquuqda dadka uu siinayo xuquuqda bay qayb ka tahay. marar badan waxaa laga yaabaa dadka qaar inay isweydiiyaan oo dalka amnigiisu ma hagaagsane xagee mudaharaadka u socdaa xagee mudaharaadka u socdaa inay isweydiiyaan baa laga yaabaa. mudaharaadka had iyo jeer waa la qabtaa dawladdu ay qabataa wayna qaban jirtay mudaharaad taageero ah oo degdeg lagu abaabulo mudaharaad muddooyinkii la soo dhaafo oo haba yaraatay gaar ahaan 4 sano ugu dambeysay wax problema ah ama wax rabshado ah ama wax dhibaato oo ka dhashay ma aanay jirin waayo waa la ilaalinay. anagu haddii aan nahay murashaxiintii ma aanan carqaladayn mudaharaadkii dawladdu ay sameynaysay cunfi kale ma aan hortagin gacan kale ma aan hortagin. waxaan arkaynay dadka Soomaaliya xaq inay u leeyihiin markay doonaan inay isku soo baxaan aragti siyaasadeed ay doonaan inay taageeraan ama cid markaa xukunka joogta noqoto ama cid markaa aan joogin ha noqote. caqligu ma keenayo marka in rabshado ay ka dhacaan mudaharaad annagu aan wadano oo annaga rabshadana ay naga timaado. laakiin waxay u muuqataa in nidaamka hadda jira uu rabo asagu inuu arbush ka sameeyo asagu inuu dadka xuquuqda ay lahaayeen oo ka cabsiyo asagu inuu mashaakilaadka sameeyo ayay u muuqataa. waxaan rabaa marka fariin inaan halkaan ka gudbiyo waxaan u gudbinayaa hay'adaha nabadgelyada taliyayaasha ciidamada kala gedisan ayaan u gudbinayaa. waxaan la hadlayaa taliyaha booliska taliya Xijaar baan la hadlayaa. waxaan xasuusinayaa booliska shaqadiisa asaasiga ah inay tahay in uu sugo amniga qofka muwaadinka ah amba ha joogo xafiiskiisa amba gurigiisa amba xarun oo ku mudaharaadayo ha u mudaharaado nidaam markaa jiro amba ha ka mudaharaado nidaam markaa jiro. laakiin had iyo jeer waa adeeg booliska xaq loogu leeyahay oo xushmad iyo xurmad iyo mushaar ay ku qaataan inay ilaaliyaan
xuquuqda muwaadinka uu leeyahay ee amniga ah goob kasta iyo goor kasta inay ilaaliyaan dadka jimcada isu soo baxayo ee mudaaharaadayo dadka way kamid yihiin waxay xaq u leeyihiin in loo adeeg amni loo qabto dadka arbushay laga celiyo waxyaabaha khatarta ku ah laga qabto dad isqarxinaya ama dad mashaakil wado haddii la arkay laga celiyo iyaga aan wadooyinka lagu celin iyaga aan la arbushin madaxda mudaaharaadka ka qayb galayso oo annaga ah inaan la arbushin la carqaladayn socodkooda aan la waxyeelayn waa waajib dastuuri ah waajib shaqo booliiska saaran waxaan rajaynayaa aqoon durugsan baan u leeyahay waxaan ogahay xirfadda uu ku shaqaynaya inuu yaqaano muwaadiniinta si isla siman inuu uga adeego booliiska inuu ka shaqeeyo ayaan rabnaa waxaan la hadlaa taliyaha ciidamada xoogga dalka waa ogahay amniga dibadda ay qaabilsan yihiin laakiin duruufaha Soomaaliya ka jira awgeed wax badan oo badan ay gudaha ka qabtaan oo adeeg ah adeegaas haddana waxaa la rabaa oo taliyo odawaa waxaan ka rabnaa in adeegiisa uu ku aadiyo oo adeegida muwaadinka Soomaaliyeed ee ku aadan in uu bad qabo oo meesha uu rabo uu tago oo cidoo doono uu ku mudaaharaado cidoo doono uu mudaaharaado